Assalaamu calaykum waraxmatullah. Kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan markaasi ku sharaxi doono ama aan ku sheegi doono waxa uu ka koobnaan doono kooraska aan sii dayn doono HTML iyo CSS ee aan soo gelinay markaasi Xirfad Academy. Kooraskan gebi ahaantii waxa uu ku saabsanaan doonaa HTML iyo CSS. HTML waxaa loo isticmaalaa haddii aanad garanayn markup-ta iyo structure-ka markaasi uu ka kooban yahay website-ku. Halka CSS-na looga isticmaalo designing-ka, color-ka, farta intay leeg tahay, maxaa la dhahdaa, iyo waxyaabaha la midka ah wixii design la xidhiidho dhan ayaa markaasi CSS loo isticmaalaa. Marka kooraskan gebi ahaantiiba waxa uu ku saabsanaan doonaa HTML iyo CSS. Ugu horeynta waxaan dhisi doonaa website-yo yaryar oo fudud ama pages yaryar oo fudud inagoo isticmaalayna kaliya HTML. Kadibna markaynu intaa ka gudubno waxaynu bilaabi doonaa inaynu isticmaalno CSS si aynu markaasi u nashqadayno oo u qurux badnaysiino markaasi page-yadaas. Halka ugu dambayntana aynu ka samayn doono website weyn oo noqon doona markaasi e-commerce. Waa ka halkan ka muuqda markaas. oo haddii aan idin tuso sida uu ekaan doono project-ga ugu dambeeya. Dabcan project-yada aynu ku dhisayno oo dhan kuma sharaxi karo muuqaalka yare kooban. Waxaan soo qaato markaasi project-ga ugu weyn ee aynu dhisayno. Okay, ugu horeynta waxaynu haysanaa markaasi page-kan background-kiisu yahay markaasi modern-ka. Halkan waxaynu ku haysanaa sawir. Halkan sidaad arkaysaan waxaynu ku haysanaa ciwaan aynu nashqadaynay oo markaasi qurux badan. Halkan waxaynu ku haysanaa button. Okay, haddaynu sii socono aynu u tagno qaybtan. Halkan waxaynu ku haysanaa product-yada markaasi popular-ka week-gaasi. oo adigu halkan waxaad dhigi kartaa tusaale ahaan haddii aad leedahay markaasi e-commerce store, alaabta aad markaasi doonaysid in aad macaamiishaada usoo bandhigtid. Markaynu sii socono halkan waxaynu ku haysanaa latest products. Halkan waxaa ku qoran markaasi magacii product-ga, sawirkii, sida dadku ay u arkeen alaabtaas iyo sidoo kale markaasi qiimaha. Haddaynu sii socono halkan waxaynu ku haysanaa page markaasi aynu dhigi karayno product keliyata. Okay, by now kuma dhufanayo sababta waxaan rabaa inuunu page-kan inaga kaxayn oo aan idu wada tuso waxa page-kan ku jira. Halkan waxaan ku haysanaa sawir iyo text. Yacni waxyaabahan waxay kuu saamaxayaan markaasi sababtan waxyaabahan oo dhan uga buuxiyey si aad markaasi ugu baran kartid inaad samayn kartid page kasta nooc kasto markaasi u eeg yahay. Okay, halkan waxaan ku haysanaa markaasi bogosyo testimonials ah. Halkaynu ugu dambeynta halkan kaga haysana markaasi footer-kii oo inagu qorantay markaasi ciwaanadii. Sidoo kale in dadku ay ka download garaysan karaan iyo markaasi social media. Okay, halkan waxaynu ku haysanaa haddaynu halkan u tagno dhowr page oo uu qofku markaasi sii geli karayo sida products, contact page iyo sign in. Products-ka qofku markuu ku dhufto waxa usoo baxaya markaasi page-kan ay ku jiraan markaasi product-yadii. Sidoo kale markuu qofku contact ku dhufto waxa usoo baxaya markaasi form-tan uu buuxbuuxin karo. Sign in-ta marka uu ku dhuftana waxa usoo baxaya markaasi login form-tan. Haddii aanu qofku hore uga diiwaan gashanayn page-kaaga, dabcan wuxuu samayn karaa sign up. Deetana waxay isbedeli doontaa form-tii meesha taalay oo waxay isku bedeli doontaa mid uu qofku markaasi iska register-ayn karo. Okay, haddaan home-ka ku noqdo waxaan doonaya page kale inaan idin tuso. Haddii qofku markaasi halkan ku dhufto waxa usoo bixi doonta markaasi page-kan. Uu qofku ka dooran karo markaasi size-ka kabahan inta mid uu u baahan yahay. Sidoo kale uu ka eegi karo sawirada kale ee ay kabahaasi leeyihiin ama product-gaasi ay leeyihiin. Haddii uu qofku markaasi ku dhufto add to cart, waxaa soo bixi doona markaasi page-kan ay ku jiraan dhammaan ashyaadii uu markaasi qofku geliyey card-kii. Sida muxuu ahaa waxaad dooran kartaa inta mid ay yihiin, qiimahooda iyo macluumaadka kale ku saabsan markaasi product-ga sida qiimaheeda. Sidoo kale website-kani waxa uu yahay markaasi responsive.
responsive macnaheed waxa weeyaan markaasi in website-kaaga ama page-kaagu uu la qabatimi karo screenada kala duwan size-ka ay leeyihin screenada kala duwan ee ay dadku markaasi isticmaalayaan sida desktop, mobile iyo markaasi iPads. oo haddii aynu iminka eegno qaabku u ekaanayo marka lagaga jiro mobilada waxa uu noqon doonaa markaasi sidan. oo iminka halkan waxaynu arkaynaa in marka lagaga jiro iPhone 6 iyo 7 iyo 8 plus ba inuu noqon doono markaasi very responsive. halkan waxaa soo bixi doonta markaasi minihi baa meesha ka bixi doonta oo waxay noo soo bixi doonta markaasi hamburger uu qofku markaasi ku dhufan karo oo ay usoo baxeen markaasi page-yadii ama minihi. hadaynu eegno markaasi qaabku u eegyahay marka mobilka lagaga jiro sidaad arkaysiin dhammaan contentii ku jirta halkani waxa weeyaan markaasi responsive. aynu eegno bal hadda sida u ekaanayo marka lagaga jiro iPad-ko kale isagana waxa uu noqonaya markaasi sida tan. haddaynu sidoo kale eegno Galaxy S5 isagana waxa uu noqon doonaa markaasi sida tan. yacni hadalkoo kooban page-kani iyo page-yada kale ee aynu dhisaynaa waa qaar markaasi waxay noqon doonaan responsive oo la qabatimi doona kolba userka isticmaalaya markaasi website-kaaga soo booqanaya meesha uu kaga jiro uu isticmaalayo shaashada uu isticmaalayo. waana qodob muhiima inaad kusoo kordhisid markastoo markaasi aad dhisaysid page sababtoo haddii aad kusoo kordhin weydid dadka badankooda waxay isticmaalaan markaas waqtiyadan dambe mobilo sidaa awgeed waxay noqonaysaa inay hadhowtoola ku adkaato inay arkaan markaasi qoraalada uu ka kooban yahay markaasi page-kaagu. sidoo kale contentigiina way isku dhex yaacaysaa sidaa awgeed waa inaad markaasi kala habaysaa oo aad la socotaa sida ay contentigaagu u eeg tahay screenada kala duwan marka laga isticmaalayo. yacni waxaad arkaysaan inuu yahay project side weyn oo aad markaasi ku baran kartid waxyaabo fara badan. waxbaan odhan lahaa waa projectka keliyateed u baahan tahay si aad markaasi u baratid HTML iyo CSS qaab markaasi professionala. marka course-kan waxa uu noqon doonaa mid complete HTML iyo CSS uma baahna wax requirements inaad hore HTML u taqaanid ama CSS hore usoo dhigatay. dabcan haddii aad tahay markaasi beginner, haddii aad tahay intermediate iyo haddii aad markaasi tahayba qof in muddo ku jiray HTML iyo CSS waxa uu noqonaya markaasi course aad ku anfacaya. marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan waxaan doonaya inaan idinla socodsiiyo haddii aad xiiseynaysid aan isku aragna course-ka haddii kalena tan iyo intaan muuqaalka kan ku xiga isku arki doono waxaan idinkaga tegayaa nabaday.